marka toddobadan xagga xididka ee guurkoodu xaraamta yahay haddaynu tirino waxa weeye ooridii aabbaha maxaa loo yaqaanaa aayade tii hooyadaa dee waynu soo dhaafnay waxa weye ooridii aabbaha aaya la ydha aayo aayadii waa aayo aabbo wax kale miyaa lagu sheegaa aayo aabun bay malaa soomaalidu wada taqaanaa gebiga dad baa edda u yaqaana aayada aabbo dadka qaar baa edda u yaqaana miya eddadiina maxay ku sheegaan markaa eddadiina dee markaa ankal ha u bixiye waayo waa aayadii aayadduba way sheegaysa waxa weye gabadha inankaaga tusaalaha adigaan kaa soo qaadaya macnaha waa zawjat libn inankaaga ooridiisi xalaa'ilu abnaa'ikum bay suura aayaddu ka cabiraysa xaliilat libni baa laydhaha sodohdaa wacajo badanta sodoh iyo xaaskaagu inantii ay sii wadatay qur-aanku rabiibada u bixiyay warabaa'ibukum arabiiba xaaskaagu inanta ay hore usii wadatay nin hore ka dhalay intaanad guursanin ya taana waxaa la yidhaahdaa maxay rabiiba halkaas waa afar aayada iyo gabadhii inankaagu qabay sodohdaa iyo tii gabadhaada ay wadatay afar gabadhaada edadeed walaasheed habaryarteed gabadhaada edadeed walaasheed iyo habaryarteed waa imisa dee waa toddoba afar hore iyo saddex dambe toddobadaasina xagga xididtinimada ayay ku xaraami guurkooda haddaan ku celino waa waxa weye tii aada sodoga u ahayd adigu ee inankaagu qaday iyo tii aayada ku ahayd iyo sodohdaa iyo inantii gabadhaada wadatay gabadhaada walaasheed edadeed habaryarteed ya macnaha xaaskaagaba ma jira cafwan gabadhan ba iyadana laba waji leh gabadha marka la idhaahdo ayaa dadka qaarkood xaaska u yaqaan qaarna inanta marka ooridaada dheh ooridunaan idhaahno oorida malaba si waafaqsan ooridaada tii ay dhashay iyo tii iyada dhashay waaye